nabigeennana sala allahu calayh wasalam wuxuu dardaaranada badan ee inooga tegay maxaa lagu kala fiican yahay sida loo wax kala tar badan yahay waxa la qabanaya muxuu ku kala fiican yahay si uu kala wax tar badan yahay si guudna waa inoo yidhi si gaar ahaana tusaalayaw badan nabigeena sala allahu calayh wasalam waa inoogu sheegay tusaale ahaan nabigeena calay slam xadiidkii jaabir wuxuu yidhi almu'minu ya'lafu wa yu'laf qofka mu'minkii waa qof dadku ay u soo istaagaan ay weheshadaan isna waa qof dadka weheshadoo dadka dhex gala walaa khayra fii maa laa qofaan isagu dadka dugsanaynin oo gooni socda isna aan lagu soo hiranaynin oon waxtar iyo wehel laga rajaynayninna khayr ma lah kadib wuxuu yidhi wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa ugu fiican ka dadka ugu waxtar badan uguma fiicna ninka duurka gala ninka waxoogay markuu helo xaafadahan la gaadhin dega ninka martida ka fogaada ninka dadka duruufaysan ka carara ninka dadka ka dhexbaxa saa darteed annagu xadiid kale ku yihi mu'minka alladii yukhaalitu nnaasa wayasbiru calaa adaahum khayru min aladii laa yukhaalitu nnaasa walaa yasbiru calaa adaahum qofka muslimka ee dadka muslimiinta ku dhex jira dhibkoodana u dulqaadanaya wax taraya baa ka fiican qofka aan muslimiinta dhex gelaynin dhibna u dulqaadan karine ka cararaya duurkaa gelaya dadka araggooduba dhibayo oo meel la joogo markuu arkaba luuqa ka leexanaya intaan ishu qaban dhuumanaya cararaya kaas ilaahay khayr ha siiya iimaankiisu kullan wacda allahu alxusnaa way insha allahu hadduu iimaan yeesha laakiin yaa fiican wuxuu yidhi wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa ugu fiican qofka dadka ugu waxtar badan intee dadka waxtartay baa lagu kala fiican yahay saa darteed markii qofka muuminkaa la qiimaynayo waxyaabaha lagu qiimeeya waxaa ka mida dadka muxuu taray siday dooniba waxtarkaasi ha noqdo mar kale nabigeena sal slam xadiid bni cumar kaa lamiduu leeyahy wuxuu yidhi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay qofka ugu waxtar badan wuxuu leeyahy acmaashuu ka hadlay marka waxabu lacmaali ila allahi suruurun tudkhiluhu calaa muslimin camalna waxaa ugu fiican qof muslimahood ka farxiso qofka in laga farxiyaay qof murugaysan wey qof tiiraanyaysan qofkaa murugaysan sababo badan bay yeelan kartaa in kurbadii laga faydo saa darteed buu qaybta dambe ee axaadiidka ku yidhi dayn inaad ka bixiso gaajo hayse iyo xanuunkii gaajada inaad wax siiso iyo tusaalayaw badan buu bixiyay nabigu sal ly slam markaasuu laba arrimood buu xadiidkaa ku soo gebagabeeyey wuxuu uhi walaa namshia maca akhii fii xaajatin waakay baahi uu lahaa inaan u raaco ilaa aan baahidaa la soo dhammeeyo axabu ilaya min an actakifa fii masjidii hada shahran bil inaan masaajidka nabigu waa ka labaad ee ugu fadliga badan xaramka maka marka laga tago salaada lagu tukaday misay u dhigantaa 100 salaa bil inaan ku ictikaafo raggeenii halkaa ramadaanka oo dhan cararayay agoontii masaakiinta oo gaajaysan inaan ruux raaco baahan oon wax la soo qabto oon dantiisa la soo fuliyaan ka jeclahay bil inaan masaajka ku ictikaafo ictikaafku fadligiisa iyo cibaado wanaagsan oo qiimo badan wey laakiin aday kugu eg tahay laakiin qofkan aad raacday eed wax la soo qabatay dad baad wax tartay mar kalena wuxuu yidhi xadiid qayb kalena wuxuu yidhi qofka raaca qof muslima dan uu leeyahay u raaca ilaa uu u soo dhammeeyo ilaahay baa lugihiisa iyo jawaabihiisa sugaya yowma tazuulu alaqdaam maalinta qiyaame ee la wada sibqan doono ama fitanka waaweyn jiraan baa ilaahay xaqa ku sugayaa qofkii walaalkii raaca oo dantiisa u raaca oo la soo qabta ilaa uu la soo dhammeeyana aan ka hadhin marka saa darteed nabigu wuxuu ina barayaa sala allahu alayh wasalam inaad noqotod ilaahay ku caabudo dadka inaad wax tarto dadkuna ku kala qiimo badan yahay sida dadka wax loo taro acmaashuna u kala fiican tahay say u kala waxtar badan tahay mar kale nabigeena sala allahu alayh wasalam dadka la daweynaya xanuunsan
iyo carabtu qaybahay samayn jirtay baa looga sheekeeyey qolo walba say wax u daweeyaan ree hebel baa waxaa ka tufa waxaasaa lagu aqriyaa kaas geedkaasaa la mariyaa xanuunkaa waxaa yaqaana qoys ree hebel la yidhaahdaa xanuunkaa si loo yaqaana kuwaa lafaha si loo kaba yaqaana waxyaa badan baa laga sheekeeyey oo munaasabadda xadiidku u badnaa arrimo caafimaadka iyo dawooyinka iyo dad yaqaana iyo dad wax daweeye hadal kooban buu nabigu calayhi salaatu wasalaam soo jeediyey oo wuxuu yidhi man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal qofka idinka midoo awooda walaalkii inuu wax taro erey baad wax ku tari kartaa jid baad u tilmaami kartaa xoolaad ku bixin kartaa wuxuu u baahnaa aqoon ahaabaad siin kartaa maal baad siin kartaa cid dhibaysaad kala hadli kartaa waxay dooni ha noqoto si guud nabigu wuxuu yidhi man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal qofkii awooda walaalkii inuu wax taro weli waxa yeela maqli maysid waxa yeelin walaalka maahane waxa taro qofka wax taraysa darteed baad ku noqon xabbu naas ila allah anfa'uhum linnaas mar kale nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiis Anas ibn Malik wuxuu leeyahay dadku waa laba qaybood baa dadka kamida inna min an-naasi mafaatiixa lil khayri maghaliqa lishar dad waxaa jira albaabada khayrka fura iyo qof waxaa albaabada dhibkan iyo baladana xiro ka hortaga iyo qolyo kale oo naarafuufa oo bala iyo fidna ka shaqeeya dadkuna waa la kala yaqaanaayo dadku ay ku kala baranayaan ruux markuu yimaado fadhiga maanta xaajada inay qasantaa loogu talagalay ama reeb